salaamullaahi calaykum soo dhawaada. Hadduu allah raali ka noqdo, maanta waxaan idinla wadaagayaa 4 qodob oo muhiim u ah marwada la qabo ama hooyada xilliga ay uurka leedahay, taas oo u suurtagelinaya ama kor u qaadaya kalsoonida ay nafteeda ku qabto. Kalsoonidu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha. Waa mid ka mid ah waxyaabaha dhaqaajiya qofka una suurtageliya inuu wax qabsado. Qofka marka uu ku kalsoon yahay nafsadiisa, waxa uu aaminsan yahay inuu yahay qof wax qaban karo, wax soo saari karo, isla markaana nafsadiisa heer gaarsiin karo. Hooyadu maadaama ay tahay madarasada koowaad ee ilmaha soo saarta, waxaa lagama maarmaan ah ama muhiim ah in ay tahay hooyo nafsadeeda ku kalsoon, hooyo awoodahee uu ilaahay siiyey aaminsan, si ilmaheeda iyo awlaadii ay soo saartay ay u noqdaan dad isku kalsoon oo beri naftoodana wax tara, dadkoodana wax tara, gurigeedana uu u noqdo guri wanaagsan oo farxad iyo reereen ku dhisan. Haddaba waxaan kula wadaagayaa 4 qodob oo sare u qaadaya kalsoonida ay hooyadu nafteeda ku qabto, si ay u soo saarto ubad isku kalsoon oo naftooda wax tara. Qodobka koowaad waxa uu yahay, marka ugu horeyso ku qanacsanaa waxa uu Alle ku siiyey. Gurigaaga alaabta taalo, zawjkaaga, awlaadaada iyo nafsadaada iyo wax walba uu Allah ku siiyey waa nicmo. Ku qanacsanaa, dheh alxamdulillaah, ilaahay u mahad celi. Maanta haddii ay jiraan wax aad tabayso ama aad isleedahay way kaa maqan yihiin, qof ayaa ku haminayo in uu helo inta aad haysato. Irsaaqada ilaahay wuu qeybiye, qofna wuxuu siiyey irsaaqad aad u badan, qofna irsaaqad yar. Taas micnaheeda maaha inuu ilaahay adiga ku neceb yahay, balse labaduba imtixaan ayay ku jiraan, kan loo badiyey iyo kan lagu yareeyey. Ilaahay wuxuu fiirinayaa inaad sabraysid haddii waxaad haysato ama irsaaqadaada ay yar tahay. Haddii ay badan tahayna waxa uu fiirinayaa in aad u mahad celinaysid ilaahay oo oranaysid ilaahu ku mahadsanid caafimaadka, ilaahu ku mahadsanid awlaada. Teeda kale, ilaahay qofka dhinac walba kama xarimin. Haddii irsaaqada ama dhanka dhaqaalaha aad ka hooseyso, waxaa dhici karto inuu ilaahay awlaad ku siiyey. Haddii irsaaqad badan ama lacag badan ilaahay uu ku siiyana, inaadan awlaad haysan. Mar walba bini'aadanka ma dhammaystirno, imtixaan wuu jirayaa. Wax walba aad haysato ku sabar, ilaahay u mahad celi, ku qanacsanow naftaada, muuqaalkaaga, siduu ilaahay kuu abuuray, zawjkaaga iyo qofku ilaahay calaf kuugu daray, awlaadaada iyo wax walba, xitaa alaabta kuu taalo, ku qanacsanow. Waxaa jirta aayad quraan uu ilaahay leeyahay, la in shakartum laaziidanakum, haddaad ii mahad celisaan waan idiin siyaadinayaa. Qof kasta qofkuu ilaahay uga mahad celin ogyahay, uu ka mahad celin badan yahay, ilaahay faraj ayuu u furaa. mar walbo noloshiisa kor ayay u socotaa, farxad ayuu dareemayaa, kalsooni ayuu dareemayaa. Mar walba waxaa ku dadaashaa inaad ilaahay u mahad celiso. Qodobka labaad oo kalsoonida hooyada kor u qaada waxay tahay, ku dadaal nadaafada jirkaada, nadaafada muuqaalkaaga. Waxaa tahay hooyo awlaad haysato ama waxaa tahay qof xaamilo ah. Hooyada markay uurka leedahay, maqaarkeeda wuu isbedelayaa gebi ahaan, wuxuu yeelanayaa calaamado madmadow, waxyaabo badan ayaa kusoo kordhayo. Sidoo kale muuqaalkeeda xitaa wuu isbedelayaa. Waxaa dhici karta miisaan fara badan inuu koro oo ay aad u cayisho. Haddaa ilma haysatid, ayadana waa muhiim oo waa lamid, waa inaad ku dadaasho nadaafada muuqaalkaaga. Sameyso rootiin ama qaab aad u sameyso nadaafada jirkaaga. Soomaali waxay ku mahmaahaan, lama kala qurux badno ee qubeyska badso. Mar walba oo aad ku dadaashid qurxinta muuqaalkaaga, labiskaaga, adiga naf ahaantaada waxaad dareemaysaa faraxsanaan, inaad isku qanacsan tahay, kalsooni dheeraada ayaad dareemaysaa. Xitaa dadka kuu dhow waa soo jiidanaysaa, waayo
dadka ma xukminayaan ama ma ogo waxa qalbigaaga ku jiro, muuqaalkaaga ayay u jeedaan. Soo muuqaalkaaga aad u qurxi, waxaad dareemi doontaa kalsooni buuxdo oo aad naftaada ku qabtid. Qodobka saddexaad ee sare u qaadayo kalsoonida ay hooyada nafteeda ku qabto wuxuu yahay ku dadaal nadaafadda gurigaaga. Nadaafadda guriga waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee sare u qaada kalsoonida ay hooyada ku qabto nafteeda. Waayo guriga markuu wasakh yahay uu isdhex yaalo, niyad ahaan xitaa waxaad dareemaysaa waa ka caajisay, waa ka niyad jabaysaa. Soo mar walbo howl ha dib dhiganin, isla markaas qabo, ku dadaal inaad mar walba uu gurigaaga nadiif ahaado. Waxaa dhici karta inuu sikadiisa marti kuugu imaado, waxaa dhici karta adiga xitaa xaaladaada way isbedeli kartaa, wax walbaa dhici karo. Mar walbo ku dadaal inuu guriga nadiif ahaado. Xaqiiqatan waxaad dareemaysaa kalsooni buuxdo oo aad ku qabto naftaada. Qodobka afaraad oo ah midka ugu dambeeya wuxuu yahay naftaada ha barbar dhigin qof kale. Awlaada haysato, alaabtaad haysato, noloshaada ha barbar dhigin qof kale wuxuu haysto. Haddii aad tahay qof mar walba qiimeeyo guryaha dariska, guryaha asxaabta, wixii kusoo kordhay, maxaa ka naaqusay, amaba youtube-ka iyo instagram-ka aad ka aragto waxyaabo qaali ah ama waxyaabo cusub, waxaas farxadda ayay kaa qaadayaan. Haddaa taa qof waxaas indhaha ku taago, mar walba waxaa ku dadaashaa nicmada aad haysato inaad Ilaahay uga mahad celiso. Midda labaad, qof adiga kaa sareeya ama waxaad haysato wax ka badan haysto, ha ku qiimeen naftaada. Waxaad raadisaa qof dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan adiga kaa hooseeyo, waxaad dareemi doontaa qanaaco. Waxaad haysato waad ka mahad celin doontaa. Soo marnaba ha fiirinin qof kale wuxuu haysto, only adiga alaabtaada, gurigaaga, waxaad haysato ku qanacsanaa, dheh alxamdulillaah. Waxaad dareemi doontaa kalsooni buuxdo oo aad naftaada ku qabto. Ugu dambeyn, mar walba noqo qof nafteeda ku kalsoon, qof awlaadeeda, zawjkeeda, nicmooyinku Ilaahay siiyey oo idil ku qanacsan oo ku kalsoon. Waxaad arki doontaa inuu reerkaaga noqdo reer lagu soo hirto, gurigaagana uu noqdo guri farxad loogu nool yahay. Inta yar aad haysato quruxso. Dadka farxadda helaa oo inta badan farxadda ku nool waa dad qurxista. Inta yar ay haystaan ma ahan dad adduunka oo idil haysto, laakiin wax yaroo Ilaahay siiyey ayay waxay sameeyaan, way qurxistaan, Ilaahayna way uga mahad celiyaan. Mar walba waxaa ku dadaashaa inaad naftaada kalsooni ku abuurto, nadaafadda muuqaalkaaga, nadaafadda gurigaaga, wax walba inaad ku dadaasho. Awlaadaaduna waxay noqon doonaan awlaad isku kalsoon oo laga jecel yahay magaalada iyo qaraabada dhexdooda. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddaa ku cusub tahay janaalkeena nagu soo biir, haddaa hore noola joogtana mahadsanid.